maalinta qiyaame marka dadku banka isugu soo baxo ayaa adiga ceeb gaari ku saarantay ala ruusil ashad baa lagu soo taagaya wixii aad xaday iyadoo tuurta ku sido oo ay waliba qaylinayaan oo dadkoo dhami ku arkayo ku maqlayaan ayaa lagu soo taagaya inta qiyaamaha banku dadku taagan yahay la xisaabayo de konton sanadood meelahaas la taagnaadaa qiyaamaha intaasoo dhan tuurtaad ku sidaysaa khalqiga ilaahay oo dhamina waa ku arkaya hadhowna naartii baa kuu dambaysa saa daraaddeed buu nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamay wamaa kaana linabiyyin an yaghul waman yaghlul ya'ti bima qalla yawma alqiyaama baa ilaahay ya'ti bima ghal wuxuu la imanayaa wixii uu khiyaamayay maalinta qiyaame banka isagoo taagan oo tuurta ku sida saa daraaddeed baa xadiiska saxiixaynka ku soo arooray wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wassalaam intuu tuuganimada xoolaa dadka dhaxaysa ka warramay oo aad u weyneeyey oo uu tilmaamay dembigeedu intuu leegyay ayuu dabeetana wuxuu nabigu yidhi laa ulfiyanna axadakum yajii'u yowma alqiyaama calaa raqabatihi baciirun lahu rugaa war hooy akhrayaan idan arkin maalinta qiyaame adigoo tuurta ku sita neef geel ayaan ku arkin buu nabigu leeyahay neefka geeloo reemaya ama dee cod samaynaya neef geela oo dhawaaqaya adigoo tuurta ku sita yaan idan arkin buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam neef geeloo ololaya adoo tuurta ku sida ayaan ku arkin oo leh yaa rasuula allahi aghithni ilaahay rasuulkiisiiyow ii gargaar leh faaquulu laa amliku laka shay'a qad ablaqtuk nabigii naxariista badnaa ee aakhiro shafeecadiisu tirada badan tahay ayaa ku odhan doona maanta haddaad waxa kan xaday war hooyaan idan arkin buu yidhi idinkoo neef geela tuurta kaa saaran yahay oo neefku qaylinayo oo aad leedahay rasuul alla ii gargaar oo annaan ku odhan doono laa amliku laka shay-an qad ballaqtuka waxba maanta kuuma hanto waa ku soo gaadhsiiyey aan leeyahay buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wassalaam waxba yowma laa yughni mawlan can mawlan shay-a ilaahay wuxuu leeyahay waa maalinta aan cidina cid wax ka taraynin nebi maxamed oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay rasuul naxariis badan inuu yahay laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim nabigaha ilaahay uu ku sifaynaya inuu naxariista badnaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ayaa maanta odhan doona waan anigu waxba ku tari kari maayo anigu anigii ku soo gaadhsiiyey markaad dunida joogtay waxa uu nabigu tilmaamay haddana kuma dayninkaase laa ulfiyanna axadakum yajii'u yowma alqiyaamati calaa raqabatihi farasun lahu xamxama waryaan midkiin arkin tuurta faras ku sida faras dhan baa tuurta ku sita neef geela tuurta ku sida neefkoo lahu xamxama waa codka sahiilka ka yar bay idhaahdaan adigu isna reemaya dheh faras dhawaaqaya adoo tuurta ku sita oo leh ilaahay rasuulkiisiiyow ii gargaar waan ku odhan doona buu nabigu yidhi maanta laa amliku laka shay-an adna waxba kuuma hayo qad ablaqtuk waan ku soo gaadhsiiyey markaasuu haddana nabigu leeyahy laa ulfiyanna axadakum yajii'u yowma alqiyaama